wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug Mudane Bashiir Maxamed oo Cali oo waraysi gaar ah siiyay Galmudug TV ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah. ugu horeyn wasiir Bashiir Maxamed oo Cali ayaa ka hadlay qorshaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Galmudug iyo waxyaabihii uu qabsoomay muddada 6 bilood uu joogay. waxaan u maleynayaa 6 bilood ilaa 7 bilood baan magacaabnay wasaaradda ilaa xilligii madaxweynaha Galmudug uu soo magacaabay golaha wasiirada. waxaan degsanay qorshe ilaa 2 sano wasaaraddu ay qorshe ay ku shaqeyn lahayd 2 sano soo socota. waxyaabaha noo qabsoomay ilaa hadda waxaa ka mid ah inaan sida la socotid maamulka Galmudug wuxuu magaalada markuu midoobay caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug uu tagay waxay ku horeysay Galmudug waayadii laba u kala qaybsanayd. kadib dib u heshiisiintaas taariikhiga ahayd ee uu ku tagay madaxweynaha maamul goboleedka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. waxay ahayd hawl badan oo u taala wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Galmudug sida isugu keenin lahayd oo u midayn lahayd dhalinyaradii si loo midayn lahaa isboortiga Galmudug. waxaan sameynay marka inaan dhalinyaradii Galmudug oo caasimadda Dhuusamareeb ku sugnayd Gurceel ilaa Balanbal meelihii kale ay joogeen iyo dhalinyaradii horey magaranaysa u kala qaybsanay maamulka Galmudug joogay isugu imaan lahaayeen oo loo midayn lahaa. waxaa noo qabsoomay kulan ka dhacay caasimadda Dhuusamareeb oo dhalinyarada Gaalkacyo iyo kuwa cadaad qayb ka socday kuwa Dhuusamareeb Gurceel ku ka yimid ay halkaas ay kulan ku yeesheen isku fahmeen Galmudugna ay ku midaysan ay halkaas ka wada ambaqaadeen. sidoo kale waxaa qabsoomay kulamo dhalinyarada Galmudug looga wacyigelinayo qabyaaladda looguna dhiirigelinayo horumarka iyo si ay uga qayb qaadan lahaayeen maamul wanaagga. kulamadaas waxay ka qabsoomeen degmada Caawdwaaq caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb Gaalkacyo waa ka qabsoomeen. kulamadaasna waa noo qabsoomeen insha Allah. waxyaabo badan oo hadda aan hawshin ku jirno oo noo qabsoomi doono insha Allah waa jiraan sidii loo horumarin lahaa magaranaysa ii sheeg loo wacyigelin lahaa dhalinyarada tahriibta iyo sida ay looga hortagi lahaa inay dhalinyaradu ay ku biiraan ururada argagixisada oo loogu sameyn lahaa barnaamijyo ay ku madadaashaan haddii ay tahay dhanka isboortiga iyo haddii ay tahay waxyaabaha kale dhalinyaradu ay ku madadaashaan. sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug ayaa ka hadlay dhismaha iyo garoomada degmooyinka Galmudug. waa muhiim in ogaano inay Galmudug iyo guud ahaan dalka Soomaaliya u baahan yahay dib u dhis. ma jiraan runtii garoomo caalami ah oo international standard ama garoomada sida adduunka laga yaqaan oo kale oo ka dhisan Galmudug. laakiin waxaa jira degmooyinka qaar kuwa leh garoomo caadi ah oo dhalinyaradu ay ku ciyaari karaan sida hadda waxaa soo gabagabobaya garoonkii kubadda cagta ee degmada Caawdwaaq oo gabagabo maraya. sidoo kale waxaa heer gabagabo maraya isaguna degmada Balanbal garoonkeedii kubadda cagta. Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaa ka dhisnaa garoon kale iyadoo saas oo kale dhalinyaradu ciyaaraan stadiumka weyn ee Dhuusamareeb. sidoo kale Gaalkacyo waa ka dhisan yahay iyadana waxaa la rabaa in dib u dhis lagu sameeyo garoonkii degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Cabdullaahi Ciise insha Allah asana qorshihiisa aan ku jirno si dhismihiisa magaranaysa loo gudagelin lahaa bilaha soo socda. wasiir Bashiir Maxamed oo Cali ayaa sheegay in wasaaradda qabanayso tartan kubadda cagta loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan loona qabanayo degmooyinka ay ka kooban tahay Galmudug. waxaa la socotid waxa bil kasta Ramadaan waxaa la qabtaa tartamo dhalinyaro oo ay sameystaan marka degmooyinka Galmudug guud ahaan oo u diyaar garoobayaan tartamadaas wayna qaban doonaan insha Allah. wasaaradda federaalkuna way ka caawin doontaa wixii qalab ah iyo wixii magaranaysa facility oo ay u baahan yihiin dhalinyarada tartamadaas. Mustafa Abdi Gabo Musaf Karama TV ka Galmudug magaalada Muqdisho.